dunida waxaa toddobaadkan laga xusayaa maalinta xanuunka HIV/AIDS waxaana jira horumar laga sameeyey daawooyinka lagula tacaalo xanuunkaasi, laakiin dhinaca kale weli waxaa taagan faquuq iyo takoor ay la kulmaan dadka xanuunkaasi qaba. gudaha Somaliland, dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ayaa takoor lagu sameeyo oo hadda u gudbay ubadkii ay dhaleen, waxaana dhowaan 2 caruur dugsi ay dhiganayeen magaalada Hargeysa looga saaray in waalidkood uu xanuunkaasi qabo. wariyaha VOAda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay dadka xanuunka la nool, warbixintan ayuuna noo soo diray. waa haweeney ka mid ah dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ee degan magaalada Hargeysa. muddo haatan laga joogo 12 sano ayay ogaatay in xanuunkan asiibay, waxaana ay sheegtay inay nin ay isguursadeen iyagoon isbaadhin. walow ninkeedu u geeriyooday xanuunkan, isla markaana iyada lafteedu xanuunkani la noolid muddada intaa leeg, haddana imika waa xaas oo waxay dhashay 5 caruur ah, waxaanay afaw tahay oo isqabaan wiil isna xanuunka la nool. hase haatee sida ay sheegtay ubadkeedu xanuunka way ka caafimaad qabaan. walow xaaladaha nololeed ee xanuunkan ay tabaaleeyeen dadkan, haddana waxaa xanuunka kaga sii xanuun badan waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada inteeda kale. iyaga waxaa laga saaray dhammaan xuquuqaha uu leeyahay qofka bini'aadamka. waxaa laga saaraa guryaha lagama kireeyo, waxbarasho ma dhigtaan, waxba lagama iibsado, nolosha aadamuhu u baahan yahay dhan zero bay ka yihiin. marka qaar waa dad la takooray oo bini'aadan takooray, qaarna waa qaar iyagu istakooray. haddaan soo noqono kuwa la takooray, waxa uu ka bilaabmaa takoorku guriga. haddii hooyadu ku takoorto, walaalku ku takooro, aabuhu ku takooro, bulshada kalena waxay u fududaanaysaa sidii iyaguna wax ku gaarsiin lahaayeen. af baa lagu takoorayaa, ficil baa lagu takoorayaa. afku waxa weeye taa ma taqaanaa waa tii xanuunkaa qabtay, waa tii AIDS-ka qabtay. AIDS iyo HIV-na waa kala gaar. maadaama ay leeyihiin AIDS buu qabaa, waxay u nisbaynayaan inuu leeyahay qof xun oo xumaan ku qaaday. marna waa mar ficil lagu takooray oo gacanta loola yimiday oo gurigii uu deganaa laga saaray oo xaqiisii iyo xuquuqu wuxuu lahaa laga saaray oo la yidhi adigu noloshaba sii roobaad ka tahay waad dhimanaysaa. dad badan oo ay ka mid yihiin khubarada caafimaadku ayaa walaac ka qaba in takoorku qayb ka noqdo asbaabaha faafinaya xanuunka oo keeni kara in qofka xanuunka qaba ku kaco ficilo keeni kara inuu faafo xanuunku. haddaba sidee ayuu xalku noqonayaa? waxaan ogahay haddii ay bulshadu soo dhaweystaan qofkan xanuunka la nool inuu isagna soo dhaweynayo, fiditaankiina uu yaraanayo oo uu xanuunkii fidayn. marka annaguna waan idiin baahannahay ban leeyahay bulshada, idina waad noo baahan tihiin. annaguna waan iska ilaalinanaa inuu naga fido, idinana soo dhaweeya. waayo mar haddii wixiiba wax kooban lagu kala qaadayo oon wada joogan iyo bulshada macaamilkeega lagu kala qaadayn, aqoon la-aan baa dadkeena hayso, xumaan kama aha baan malaynaya. bulshada xanuunka HIV/AIDS la nool ayaa qaba dareenno kala duwan, waxaana fariimaha ay mas-uuliyiinta iyo bulshadaba u dirayaan ka mid ah. waxaan u sheegayaa fariinta mid waxaan u sheegayaa madaxdeena uu kow ka yahay madaxweynaheenu. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waanu kuu codaynay codkayagii anagoo xanuunsanna haddana adiga kuu codaynay, waanu kuu baahannahay adna waad noo baahan tahay. waxaan leeyahay in miisaaniyadda qaranka la noogu daro wax. hay-ada bini'aadan baa na siin jiray, global fund meel la dhaha baa lanaga siin jiray. global fundki waxay idhahdeen waa dawlad baa tihiin, dadkiinu waxay idiin qabtaan iska feeye. madaxweyne waxaan ka midnahay dadkan aad maxay idhahdaa u tahay adigu aad mas-uulka ka tahay, eed madaxda ka tahay. haddana dadkii waanu ka takoorannahay, caafimaad ahaan baanu ka takoorannahay, bulsho ahaan baanu ka takooran oo ma shaqaysan karno. maanta haddaan shaqaysan tidhahdo halkaa suuqa wax dhigo laga iibsan maayo. marka waxaan leeyahay si gaara iyo il gaara inaad nagu eegto adigu ood nala kulanto. kulan baan doonayna inaan kula kulanno oon kula hadalno. meel tala wadaag la yidhaahno oon leenahay komishanka wuuna ogyahay. guddida xakamaynta HIV/AIDS-ka ee xukuumadda Somaliland ayaa iyaguna qaba inuu jiro takoorka noocan ahi, kaas oo ay ku baraarugsan yihiin. qoys xanuunka la nool caruurtooda oo caafimaad qabta iskuul bay dhiganayaan ka mid ah iskuullada dawladda. runtii caruurtaasi iskuulka waxaa looga saaray oo looga eriyay faquuqa socda dartiisa. galka wax tusaale waxaan soo qaadanaya halka uu taagan yahay, macnaha inay bulshadu ay ogaato hooyadiin iyo aabiin baa xanuunka la nool. waan xalinay markii dambe qorto qof kasta oo maaragtay meel iskuul dawlad leedahay iyo maaragtay shaqo qaranku leeyahay iyo meel kasta oo ay dadkaasi xaq ay dawladda waxay ugu lahaayeen ay ka heli lahaayeen ka hor timaada, waxa weeyaan waxaanu ka qaadi doonaa tallaabooyin sharci waafaqsan annagoo la tiigsanayna hay-adaha ay khusayso. Barkhad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.